weligaa daawadee ma maqashay magaaladii indhaha la'ayd maxaa loogu bixiyey baad u malaynaysa masiibo ku habsatay qoom dhan oo ku nool magaalo la fantiyey ama gaadoonsan waxa ay marayaan jiilkii tobnaad ee kala hidaysanayaan xanuun hidde ah oo ilaahay u qadaray hooyadii ay ka tagfiirme daaligem waa tuulo ku taal ubuucda saxaraha waddanka Mauritania waxaanay 60 kiiloomitir u jirtaa magaalada Timbuktu oo ah magaalo ku taal koonfurta bari ee waddankaasi ku dhawaad 2,000 oo qoys ayaa ku nool tuuladani kuwaas oo dhammaantood aan lahayn laxaadka wax lagu arko ama dhaayihii ay ku maamuli lahaayeen noloshooda bulshadani ayaa ay ku dhacday masiibo xagga dhaayaha ka haleeshay oo khalkhal ku yimi xagga arag oo ay kala hidaysanayeen 10 jiil oo isdhalay haddana arrinta la yaabka leh ayaa ah inaanay waxba u ogeyn masiibadaasi ay la nool yihiin muddada aadka u dheer kuwaas oo dhista oo dhaqda bal aanu idinla wadaagno daawadayaal sheekooyinka la yaabka leh iyo qaababka cajiibka ah ee ay u nool yihiin bulshadani It all started 10 generations ago. tani waa wax ilaahay nala maagay ama uu noo qadaray waxaanaanu kala hidaysanaynay 10 fac ama jiil oo isdhalay tagfiirtayduna waxa ay ka bilaabantay hooyo uurey ah oo seexatay dabadeed ku riyootay To the most virtuous man, but without eyes. And from that moment, every descendant of hers inay dhali doonto ilmo jaadgooni ah kaasi oo bilaa dhaayo ama bilaa indha ah ilmahaas oo cid kasta oo ka tagfiirantaa ay dabadii noqotay kuwo indhala ilaahay ayaan ugu mahadnaqaynaa xataa aabbahay ayaa indhala'aa oo la odhan jiray Sheekh Maxamed Maxamuud guryaha ay ku nool yihiin dadkani ayaa ah kuwo ay u dhisteen qaab cajiiba iyagoo aan lahayn dhaayaha wax lagu arko ugu horreyn waxa ay dhistaan guryo ku habboon nolosha saxaraha ee adag kuwaasi oo isu dheelitiraya kulaylka maantii ee aadka u daran iyo qabowga habeenkii guryahan waxa ay u yeelaan daaqado badan qobtollo tiirar iyo albaabo badan si ay u fududaato bay leeyihiin inay dadku si fudud u geli karaan maadaama aan laxaadkoodu dhammaystirnay waxa uu leeyahay ninkani oo la wareystay we can only sense if something is nearby. But we are not able to waxaan dareemi karnaa oo keliya waxa noo dhow maadaama aanan si buuxda waxba u arki karin tani maaha wax aanu qeexi karno laakiin ilaahay baanu ugu mahadnaqaynaa inuu sidan naga dhigo ilaahay waxa uu na siiyey ilays hagan noo ah waana nugu mahad celinaynaa anigu markaan gurigayga ka safro ee aan soo noqdo waan aqaanaa hoygaygii sidoo kale waxaan si fiican u garan karaa dhammaan guryaha ku cusub degmada waan jeclaan lahaa inaan arko xarfaha qur-aanka kariimka gabadhan ayaa iyaduna leh aniga qudhaydu waan jeclaan lahaa inaan arko xarfaha qoraaleedka qur-aanka oo aan barto cilmi cusub oo aan akhriyo bugaagta dadka halkan ku sugan ayaa aad u jeclaan lahaa inay mar uun ilaahay dhaayahooda u furo si ay wax u akhriyaan oo ay u bartaan culuumta kala duwan ee diiniga iyo cilmiga kale laakiin laba masiibo oo ishuwan ayaa dadkani ku habsaday waa midda koowaad ee waa ummadan oo ka naafa mid ka mid ah laxaadka uu nooluhu ku ciidamiyo ee dhaayaha taasi oo ah hagaha nolosha ee noolaha waa midda labaad ee deegaanka ay ku nool yihiin dadkani ayaa ah mid gaadoona isla markaana ku yiisi yaala ubuucda saxaraha waqooyi ee dalka Mauritania waa xaalad gaadoon ah oo isbarkan ma jirto masiibo ka maqan dadkan laakiin waa bulshada muslimiin ah oo ay ku weyn tahay barashada kitaabka Alle iyo cilmiga iyagoo ay dhan walba kaga jiro nolol cidhiidhi ah oo gaadoona I learned it as a child and now I teach it to our children. I am also the imam of the mosque in this village. ujeedada ugu weyn ee aan nolosha ka leeyahay waa inaan dadka baro qur-aanka kariimka ah oo aan bartay imikana waxaan baraa qur-aanka jiilka soo kacaya sidoo kale waxaan ahay imaamka masjidka tuuladan waxaanan tujiyaa dadka ugu dambeyn waxaan aaminsanahay inay tahay tani ujeedada ilaahay ii abuuray wax kale ma samayn karo sheekhani tuuladan yar ayaa la weydiiyey sidee ayaad ku baratay qur-aanka waxay ku qaadatay muddo aad u dheer inaan qur-aanka barto waxaan u tegi jiray macallinkii qur-aankayga oo wuxuu dhigi jiray carruur aniga yara dhaanta xagga arag waxa uu ii qori jiray qur-aanka mar walba waa igu soo celcelin jiray si aan kala joogsi lahayn ilaa intii aan ka gaadhay inaan wada xifdiyo sidaasaanan ku dhammeeyey qur-aanka kariimka daawadee weli ma aragtay ummadda ay haysato masiibada noocan oo kale ah waa wax ilaahay loogu mahadnaqo inay jiraan kumanaan laxaadkoodu dhammaystiran yahay oo moogan nimcada waxaase la yaab leh iimaanka ilaahay siiyey sheekhan ku jira nolosha adag ee dhan walba gaadoonka ka